بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن صاحبة قيمها قدرت إيقاعها لقمدلو ميل البعد جوكتان مرحلة البعد القدة والإسال وحال هود دكلا لهي رمضان كريم. قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. maanta waa maalintii 12aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana hadduu Allah uu dal raali ka noqdo muuqaalkeena aan ku eegi doonaa Ramadaanka iyo sidoo kale dambi dhaafka Allah subhanahu wa ta'ala. Socdaal Training Company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha, fariijada noocyadooda kala duwan, dhalooyinka TV-yada guryaha, mukaafiyada, kuukarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha. dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macalin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macalin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha. wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda. qodobada haddii Allah uu dale raali ka noqdo aan muuqaalkeena ku gorfeel doono waxaa ka mid ah sidee Ramadaanku markaa uu horseed ugu noqdaa dambi dhaafku qofka Ramadaanka ku cibaadaystay leedato qadriga iyo sidoo kale waxyaabaha markaa la xiriira dambi dhaafka ayaan eegi doonaa. faa'iidooyinka markaa dambi dhaafka ee Ramadaanku ayaan muuqaalkeena ku gorfeen doonaa. xigmadaha markaa nadiifinta qalbiga la xiriira ayaan sidoo kale dul istaagi doonaa. kama marna xigmadaha markaa in markaa aad ka guulaysato naftaada iyo sidii markaa aad ugu guulaysan lahayd ayaan daawadayaal gorfeen doonaa oo daqiiqadaha soo socda muuqaalkeena aan ku dul istaagi doonaa. mar kale kulan wacan saaxiibayaal maanta waa maalintii 12aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana muuqaalkeena uu ku qotamaa Ramadaanka iyo sidoo kale dambi dhaafka Allah subhanahu wa ta'ala. balse inta aan muuqaalkeena guda gelin marka hore aan eegno waa maxay Ramadaan. Ramadaanku waa bil barakeysan oo Qur'aanku markaa lagu soo dejiyay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay. waa bil markaa soon, waa bil cibaado, toobad, sadaqo iyo sidoo kale akhlaaq wanaagsan. waa bil markaa fursad gaaban oo Ilaahay qofka uu ugu dhawaado. waa hagaag dambi dhaafka Alle haddii aynu eegno Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inoo dhaafo dambiyadeena nolosheena qalbigeena markaa ha inoo nadiifiye ajirkeena ha inoo laba jibaaro. nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri Ramadaanku bilowgiisa waa naxariis, dhexdhexaadkiisu waa cafis, dhamaadkiisuna waa dambi dhaaf. waa hagaage leylatu qadriga iyo sidoo kale dambi dhaafku haddii aynu eegno 10 habeen ee ugu dambaysa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa ku jira leylatu qadriga habeen markaa ka qeyr badan 10 bilood. cibaadada habeenkan waa sababta markaa dambi dhaafku loo helo. قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. ducada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ducaysan jiray waa ducadan Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ilaahayow adiga waad cafisaa, cafiska ayaad jeceshahay ee cafi. faa'iidooyinka dambi dhaafka ee Ramadaanka haddii aynu eegno qalbiga wuu nadiifiyaa, iimaanku waa uu xoogeystaa,
ajirkuna waa uu laba jibbaaraa nolol iyo aakhiro wanaagsan ayaa markaa loo diyaargaroobaa. guud ahaan daawadayaal muuqaalkeennii maanta oo ah markaa maalintii 21aad ee bisha barakeysan ee ramadaan intaas ayaan ku soo koobeynaa. waxaana muuqaalkan aan uga hadleelay ramadaanka iyo sidoo kale dembidhaafka alla subxaana wa tacaala. muuqaalkan waxa uu ka mid ahaa muuqaallo taxano ah aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan il daawadayaasheennu markaa aan u soo baahinno si markaa ay uga faa'iidaystaan miyadda iyo sidoo kale faa'iidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan. inta muuqaalkiisa xiga aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. ramadaan kariim, ramadaan mubaarak. waxaana sidoo kale idin xusuusinayaa in muuqaalka aad laag iyo shari loo saarto si markaa uu u gaaro saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale. mahadsanid.